kulan waxaan saaxiibayaal halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaan ahay guux qodobada ugu waaweyn ee caawa warkaan idinku heynana waxaa kamid ah dawladda Kenya oo isaga baxday dacwadda badda ee kala dhaxaysay dawladda Soomaaliya wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay in ay gacan siinayso wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya xilli dalka uu wajahayo xaalad adag kulamo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socotay dawladda Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed oo ka furmay magaalada Baydhabo madaxda dawlad goboleedyada dalka qaarkood oo kulamo la qaatay musharaxiinta mucaaradka ee dalka wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya oo soo bandhigtay baahiyaha kala duwan ee xilligan ka jira dalka guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo shaaciyay goorta ay bilaabanayso diiwaangelinta codbixiyaasha dawladda Soomaaliya oo ku baaqday in la garab istaago dadka ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada dawlad goboleedyada dalka iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dawlad goboleedka Galmudug oo awaamiiro ka soo saartay masaajidada dayactirka lagu sameynayo xilli bisha Ramadaan ee barakeysan ay fooda nagu soo hayso qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa saaxiibayaal warka habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City ku soo dhawaada isaga iyo intaas ka faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan axad ayaa bixaysa isniin ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 14 bisha 3 Maarso sanada 2022 aynu ku bilaabno Kenya ayaa isaga baxday dacwadda badda ee kala dhaxaysay Soomaaliya xilli maalinta isniinta ah ee berita lagu waday in dacwaddaasi ay ka furanto maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ Kenya ayaa xubnihii uga qayb galayay dacwadda badda waxa ay sheegeen in ay gabi ahaanba isaga baxeen waxaana sidaasi oo kale war ka soo baxay dawladda Kenya lagu sheegay in ay iyadu cabasho ka tahay mas'uuliyiin ka tirsan maxkamadda dhanka kale waxay sidaasi oo kale Kenya sheegtay in iyadu isbuucii hore ay codsi ah in mar kale dacwadda dib loo dhigo ay ka codsatay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ase yeeshee maxkamaddu aysan dhig jalaqa u siin dawladda Soomaaliya ayaa sidaasi oo kale u diiday wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in ay ka jawaabayso codsiyo kala duwan oo ka soo gaaray wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye xilli ay abaaro ku dhufteen meelo badan oo kamid ah dalkeena hooyo ee Soomaaliya ayaa waxaa jira cabashooyin kala duwan oo ka kala imaanaya dadyowga Soomaaliyeed ee ku kala dhaqan meelahaas ay abaaruhu ay ka dhaceen Zakariya Cusmaan Cabdi ayaa warkan soo koobaya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay in ay ka jawaabeen xaalado adag oo soo wajahay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya taasi oo ah in dalka uu ka jiro xaalado adag oo ay ugu daran tahay biyo la'aan iyo cunno yari baahsan wasiirka ayaa sheegay in markii hore ay khayladhaanta u dirin jireen hay'adaha caalamiga ah ee bixiya deeqaha kala duwan ee gargaarka hase yeeshee wasiirka ayaa sheegay in ay doonayaan inay isku filnaadaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed ayuuna ugu baaqay in ay ka qayb qaataan xaaladda adag ee uu dalku ku jiro wadankan in badan baan soo joognaa calaamaadka waa naqaanaa siday iskugu xixigaana way naga dhaadhacsan tahay waan ku soo koray taasaan ku soo koray marka saayinkaan naqaanaa marka roob da'ayo calaamadaan naqaanaa marka roob da'ayo jilaalkana calaamadiisa naqaanaa abaarna calaamadaheega naqaanaa iyo waxyaalaha isku xiga ayaa naqaanaa haddaan wuxuun khabiir ku nahay waxaasan ku nahay marka waan fahamsanahay maanta halkay marayso iyo haddaan wax weyn la qaban dhibaatada halkay gaadhi doonto waan ognahay marka waxaan idiin sheegayaa arrintaasi dawladda Soomaaliyeed waxay qayb weyn bay ka qaadanaysaa arrintaasi sidii wax looga qaban lahaa waxaan doonaynaa inaan isla soconno inaan qayladhaan diro hadalkan sheegaya waa hadal hore waad u maqasheen intiin awaarihii hore aad maqli jirteen Soomaalidu qayladhaan bay dirtay oo dabeetana waxbaa la keenay madaxayaga waxa ku jira waxa weeyaan qayladhaan dambe inaan dirayna iska dhaafno waddankan inuu gaadho meel ay isku filaado adduunyada kaleba abaaraha ka dhacay adduunyada kaleba biyo la'aan baa ka dhacday innaga teen abaarteenu yani dadkii bay leynaysaa xoolii bay leynaysaa xol bay leynaysaa bal Malawi iyo Mozambique abaar baa ka dhacay wariga maqli waana ka dhacda laakiin innagu adeer weynaan isku tashanayn
marka halkan abaartan joogta maanta ayaa focuskeenu saaran yahay wadeennuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato loo gurmado loo kaco waliba inagu aanu kacno u gurmano dadka Soomaaliyeed ee dhulkan jooga iyo kuwa dibadda jooga ama NGO ha noqdaan ama individuals ha noqdaan in loo kaco oo loo gurmado oo aanay abaartaasi dadka layrin iyo xoolahooda ayaan doonaynaa inay soo gaarsiiyo baahida loo qabo in qof waliba sare kaco dawladda Soomaaliyeed of course ayada dadka ka mas'uula haakranna mayso waxba haakran mayso ama wixii jeebkeeda ku jiray ha noqoto ama qayladaan adduunka loo diraa ha noqoto haakran mayso qayladaan waan diray ishooyinkaas oo dhan Zoom baan kula jiray adduunyada United Nations ka sida Khadija sheegtay qaybaha kala duwan waa la hadlay wixii ay ku tala galeen ee ay marka hore meel sii dhigdhigeen baan soo dedejiya waxa laga nidaam beeleysa ogtiin bilo iyo sanado ayaa loogu tala galaa bila iyo sanado ma sugayna maanta keena ayaanu ku heshiinay oo jaansida ku heshiinay World Bank mashaariicdiisii jirtay ee arrimaha loogu tala galay laakiin loogu tagalay waqti dheer inay qaadato ayaa waxaan ku heshiinay muxuu haynaan degdeg loo keeno maxay inta birta loo soo sidoo ka baxtay Soomaaliya birta inta loo soo sidoo ka baxtay macnaheeduna yahay maanta haddaan wax qaban weyna bari cid joogta cid heli mayso waan isku wada raacnay arrinta ayada dawladda Soomaaliyeed wixii jeebkeeda ku jira of course wax dadka Soomaaliyeed leeyahay weeyaan ayadana hakran mayno marka waxaan ku soo gabagabeynaa waxa weeye dhowr dhibaato ayaa markaliya dusha naga wada fuulay ilaahay waxaan baryaynaa inay qulubteenu isku timaado oo jahaysano inaan jahaysano haddaan jahaysan weyno waa laynoo jahayn doonaa waddankana waa la iska qaadan doonaa shub marka waxaa loo baahan yahay marka inaan magaranaysa gacmaha isqabsano inaan gurmano gurmadka maanta dhibaatada jirtana wax laga qabto ka wada qabano anagu dawladda hormood ka tahay si aanay inoogu soo noqonna hadday soo noqotana aynaan cid kale u qaybsanayna fal wada qabano mashaariic baa jirta imika socota mashaariicdaas oo loogu tala galay in fatahaadaha wax laga qabto in abaaraha wax laga qabto biyaha badda galayeen dhulka la joojiyo oo meel walba la geeyo wax diidayana ma jiraan waxay tahay vision Kenya maskaxdeena inay halkaas saaranto wixii loo baahan yahay fal wada la qabto biyaha badda galaya la joojiyo biyalaan ma waxay nahayaan oo maxay biyo badda u galayaan bal isweydiiya hadday biyalaan ay nahayso biyuhu badda maxay u galayaan it's a question waa su'aal weeyay tahay in laga jawaabo dadka Soomaaliyeed ka jawaabaan hebelow nooga jawaab lagaga jawaabi maayo dad baa indhaha ku haya biyaha badda galaya oo dartood noo carqaladeynaya biyaha badda galaya xagga sarana ku biyalaanay marka dadaal fara badan oo Soomaaliyeysan oo dawladeysan oo israacsan oo meel ku qotoma leenooga baahan yahay taana dawladdu waanay u soo jeedaa diyaarna way u tahay arinta wax laga qabto Zakariya Cusman Cabdi raadiyaha telefishinka City Jowhar magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ku sugan xubno kamid ah madaxda dawlad goboleedyada dalka maalmihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan ayay halkaasi ka wadeen gaar ahaan madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isagu muddo maalmaha ku sugan Muqdisho safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya qaarkood ayaa kulamo uu la qaatay dani oo shalay gaaray sidaas oo kale maanta kulamadiisii ugu horeeyay ayuu bilaabay musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya jagada madaxweynaha Soomaaliya ayay maanta kulamo kala duwan la qaateen midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa ay kulamo kala duwan kula qaateen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland waxaana intooda badan kulamadaasi ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qoraal ka soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah xubnaha mucaaradka ayaa waxa uu ku sheegay in kulanka ay la qaateen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani uu ahaa mid miro dhal ah loogana hadlayay arrimo kala duwan oo ku aadan dalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in kulanka inta uu socday looga wada hadlay sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho loo wada siman yahay isla markaana ay isla ogol yihiin guud ahaanba siyaasiyiinta madaxda qaranka iyo bulshada Soomaaliyeed sidoo kale qoraalka
ayaa lagu sheegay in mowqifka labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ay ka qaateen doorkii dhexdhexaadinta iyo shirarkii uu isugu yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee aysan ka soo qaybgelin uu ahaa mid miisaan siyaasadeed ku lahaa dalka. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ah isbahaysi si wadajir ah uga soo horjeeda madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. waxaa kulamadan kala duwan ee musharaxiinta mucaaradka ay la yeesheen uu ku soo aadaya iyada oo xaaladda siyaasadeed ee dalka ay tahay mid aan wanaagsanayn sidoo kalena xaaladda COVID-19 uu qayb ka yahay marxaladaha aan wanaagsanayn ee xilligan uu dalkeena wajahayo. wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirkeeda wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in dalka xilligan dhibaatooyin kala duwan uu wajahayo taasi oo ay ka mid yihiin xayiraado la saaray deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka. dhanka kale waxay wasaaraddu soo bandhigtay qaabka looga hortagi karo in ay mar kale abaaruhu saameyn ba'an geystaan iyo sidoo kale ayaxa. waxaa warbixintan eegaya Sagal Siman Xasan Maxamed. wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Marwa Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa shaacisay in dalka xilligan uu wajahayo xaalado adag in waxyaabaha dalka dib u dhac galiyay ay ka mid tahay xaaladda abaareed oo hadda meelo badan oo dalka ka jirta amni darro iyo xayiraado saaran deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulada dalka. 2.5 milyan oo qof ayaa wasiiraddu ay sheegtay inay wajahayaan cunno la'aan iyo biyo yari iyadoo intaasi sii raacisay in saameyn kale oo gooni ah ay ka dhalatay ayaxa waxaana ay ka sheekaysay xaaladda bani'aadanimo ee dalka ka jirta. bismillaahir rahmaanir rahiim. Soomaaliya xilligan waa muuqata astaamo halis ah ee sida abaaraha, daadadka, duufaanada, kuleylada, ayaxa, cudurrada faafa iyo argagixisada qalqalgelinaysa amniga dadka shacabka ah. waxaasoo dhan ay ku howlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha, kheyraadkiina uu yaraaday, go'doominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin iyo dib u dhaca horumarka. waqtigan aan joogno sidaan hore u sheegnay mar kalena aan ku celinayno 2 milyan iyo bar ruux oo Soomaaliya ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya cunno yarida, biyo la'aanta, ayaxa iyo caabuqan. waxaana loogu magacaabaa wejiga saddexaad ee IBC-da xaaladda bini'aadanimo ee jirta oo soo korortay oo sii kordhaysay 2021 sida aad la socotaan roobabkii oo yaraaday da'distoodii oo la soo dhaafay waxa oonu goos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeenna waana sababta keentay cunto yarida iyo biyo la'aanta ay u dheer tahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyay caabuqa COVID-19. xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gado iyo deegaano hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo gobolada waqooyi Somaliland. laga bilaabo Febraayo waxaa korortay faafidda caabuqan COVID-19 oo aad ogtihiin in ay soo bandhigto wasaaradda caafimaadka si maalinle ah. xaaladda abaaraha waxay sii cakiraysaa arrimaha bini'aadanimo qiyaastii 5.9 milyan oo qof oo dadkeena ah oo u baahan gargaar bini'aadanimo. arrimahan waxaa ugu wacan dhibaatada cimilada isbedbedelkeeda oo soo noqnoqonayo, xasiloonida, kororka dhaqaale ee muddada dheer waxaan u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan tallaabooyinka la qaadayo waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami in aan u yeelano una naxno dadkeena Soomaaliyeed. waxaan qiraynaa horumar la taaban karo in laga sameeyay
sanadihii la soo dhaafay iyo qataraha hadda la soo darsayo dhanka cimilada oo guulo laga gaaray waxaana garwaaqsanahay saamaynta naxdimahan faraha badan ee soo noqnoqonayo sidaas darteed waxaan ballan qaadaynaa inaan sii wadno dadaalada lagu yareynayo dhibaatada ka dhalan karta arrimaha cimilada abaaraha iyo waxyaabaha daadadka iyo fatahaadaha ay ka dhalan kara waxyaabahaas aan mudnaanta siinayno isla markaana aan aqoonsanahay waa baahida degdega ah ee loo qabo in loo sameeyo waxyaabaha aan awoodno si loo badbaadiyo nolosha dadkeena waxaan bogaadinayaa dadaalka wasaaradda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu jiro howlaha gurmadka degdega ah sidoo kale dowlad goboleedyada aan wada shaqaynta leenahay iyo gobolka Banaadir si aan uga qayb qaadano gurmadka socda iyadoo aan la wiiqayn wax ka qabashada abaaraha taagan Sagal Siman raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar aad u mahadsantahay Sagal Puntland haddii aynu eegnana guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka ayaa waxa ay shaaciyeen xilliga ay bilaabanayso diiwaangelinta codbixiyaasha afayeenka guddigaas Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa waxa uu sheegay in laga bilaabo 16 bisha May ilaa iyo laga gaaro 26 bisha May ay soconayso diiwaangelinta isla markaana ay ka bilaabanayso ilaa iyo 3 degmo oo uu sheegay kuwaasi oo ka tirsan maamul goboleedkaasi Puntland oo ay ugu horeyso Garowe afayeenka ayaa ka hadlay arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ah maantay 14 bisha March guddiga kumeel gaarka doorashooyinka Puntland shirarkiisii mid ka mid ah waxa uu aad u qiimeeyay markii uu tixgeliyay warbixinadii ugu dambeeyay isagoo ka shidaal qaadanaya duruufaha jira sida daraadeed ayaa guddigu isagoo tixgelinaya duruufaha bulshada reer guuraaga ah oo runtii intooda badan marxalad abaareed ku jira hadda guddigu la tashiyo kala duwan oo la sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ururada bulshada ururada siyaasadda hay'adaha dawladda Puntland iyo dhammaan shacabka iyo waxgaradka inta laga maarmaanka oo howlahan way arrinimada u leh waxa markaasi ay noqotay in saddexda degmo codbixintu ay ka dhacayso doorashada hordhaca ah haddii barnaamij ka noqdo diiwaangelintoodu inay bilaabato 16 ilaa iyo 29 bisha May waa diiwaangelinta dadka codkooda dhiibanaya oo voter registration-ka ah 16 ay bilaabanaysaa 29 dhamaanaysaa haddii la bisha shanaad iyadoo inta ka horeysana la qiimeeyay duruufaha ay ku sugan yihiin maalan dadku wax xoolo dhaqato waa beeraley marxaladda xoogaa abaar iyo abaar xigeenaha meelaha qaarkood lagu jira xoolihii waxaanu maqalnay meelaha qaarkood inay ka guureen markii aanu gobolada iyo degmooyinka tagnay sidaa daraaddeed ayaanu niri Aprilna ha noo dhammaato Marchna aanu qiimeynta sii wadno April kadib markaas markii laga baxo Ramadaanka haddii barnaamij ka noqdo lagana yaabo in roobabkiina ay da'aan in markaasi ay suurtagal noqoto ololihii oo wacyigelintiina ka horeyso inaanu bilowno diiwaangelintii saddexda degmo iyo inta hoos timaada tuulooyinkoodii haddii ay barnaamij ka noqdo waa 16 ilaa 29 bisha May haddii alla idmo guddigu waxa uu kulankiisa maantay axad 14 bisha March uu go'aamiyay in iyagana la qaban doono ururada dadweynaha iyo inta ay khusayso qaybaha bulshadana lala wadaagi doono siiba ururada bulshada iyo bulshada rayidka ah hawlaha la xiriira soo gudbinta musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo sida ururada siyaasadda lafaantooda ay uga qayb qaadanayaan ololaha iyo wacyigelinta dadka dhinaca codbixintu marka waqtigeeda la gaaro kuwaasna iyaguna haddii ay barnaamij ka noqdo sidaan oo kale ayaa hadba markii warbixinta dhulka iyo meelihii ay khusaysay ka timaada la qiimeeyo la fiiriyo marxaladda marka lagu jirana la waafajiyo iyagana markooda lagu dhawaaqi doono haddii ay barnaamij ka noqdo laakiin kulanka maanta guddiga Tibek wuxuu ahaa in lagu dhawaaqo maanta 14 bisha March in 16 ilaa 29 bisha May haddii ay barnaamij ka noqdo diiwaangelintii codbixiyaasha saddexda degmo
eyl qarle iyo ufayn ay rasmi u bilaaban doonto una soo gabagaboobi doonto waqtigaas inta u dhexeeya haddii ay barraale ka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale ku baaqday in guud ahaan qurbo-joogta Soomaaliyeed iyo dadka haysta hantiyaha inay garab siiyaan dadka dhibaatooyinka kala duwan ku wajahaya xilligan qaybo fara badan oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka haba ugu badnaatee maamulada qaar oo ay abaaruhu si baan u saameeyeen kuwaasi oo ay ugu horeyso anyaxa iyo fatahaado meelo fara badan oo dowlad goboleedyada dalka ka dhacay waxaa mar kale warbixinta soo koobaya Zakariya Cusmaan Cabdi dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dardaaran u jeedisay qaybaha kala duwan ee warbaahinta xilli dalka uu wajahayo xaalado adag wasiir Cusmaan Abuukar Dube oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in baaqiyo ay jirtay dowladda Soomaaliya ay ka soo jawaabeen hay'ado dhowr ah oo garab siinaya dowladda Soomaaliya markii ay yimaadeen musiibooyin bini'aadanimo xaalad abaareed ee ka jirta gobolka Gadow ayuu sheegay inay wax badan ka qabteen xaaladda gobolka Gadow oo dadka qaarkiis u geeriyoodeen dad xoolo dhaqato ah oo ku sugan deegaanada gobolka Gadow wasiirka maaliyadda wuxuu inoo soo koobay baaqyadii dawladdu dirtay in laga soo jawaabay wasaaradda maaliyaddu wixii iyo xukuumaddu wixii waajibkeeda ahaa way ka gudatay shaqadan ay qabanayso World Bank uu ka soo jawaabay baaqi la diray maalintii dhaweyto waxaanay dardargelinayaan in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations ka u qaabilsan arrimaha gargaarka iyaguna waa ka soo jawaabeen OIC iyo hay'adaha kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abriil in wax gurmad macna leh uu gaaro waxa kale oo iyaguna inala jooga agaasimiga guud ee wasaaradda gargaarka iyo Cabdishakuur Saami oo ka socda Strong Together hay'ad la yiraahdo oo ilaa 200 oo booyadood biyaha geysay gobolka Gadow aad baan ugu mahad celinaynaa waa dad Soomaaliyeed oo mainly jooga North America oo abaaraha ka qayb qaata iminka Gadow shaqo fiican bay ka qabteen haddana waxay ku sii socdaan Togdheer iyo Solomon aad looga soo dhibaatooyin badan laga soo sheegay iyagana waa mahad celinaynaa Cabdifitaax oo sheegay oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqooyinka ugu badan ee coordination kana haya aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdifitaax waxaan ku soo gabagabeynaynaa shirkeena jiraayid saxaafadda madaxa bannaan saxaafadda qaranka saxaafadda madaxa bannaan dhammaan warbaahintu inay ka qayb qaadato gurmadka ka koofirka iyo ka abaaraha labadaba oo la isu taago badbaadinta dadka waa dadkeenni waa mahadsan yahay wasiir Beele si fiican buu u dhigay biyo badan baan haysanaa waa ka faa'iideysan doonaa mustaqbalka tusaale ahaan gobolka Gadow oo hadda abaarta ugu xumi ka jirto 6 degmo ee gobolka Gadow 5 kamid ah waxa mara webi 5 degmo kamid ah webi baa mara ceel waaq mooyaane 5 kale marka waa in laga faa'iideysto Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha telefishinka City Jawhar waxaa nagu soo wajahan bishii barakeysneed ee Ramadaan iyadoona meelo fara badan oo maamul goboleedyada dalka xilligan ay ka socdaan dadaallo culimada Soomaaliyeed ay ku wacyigelinayaan bulshada waxaana sidaas oo kale ay dalbadeen in lala soo socodsiiyo bilashada bisha Shacbaan taasi oo ay culimada ku sheegeen in aysan gelin khilaaf maadaama inta badan dadka Soomaaliyeed ama guud ahaan Soomaaliya ay ka dhacdo in dadna qaarkiis marka ay maalinta koobaad soomaan halka kuwa kalena ay anfuran yihiin culimada ayaa dhanka kale waxa ay soo saareen war markaasi ay kaga dalbanayaan bulshooyinka Soomaaliyeed inay soo shaaciyaan cid allaale cid aragta bisha barakeysan ee markaasi ka horeysa soonka ee lagu magacaabo Shacbaan wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidaas oo kale maanta war ka soo saaray masaajidada dayactirka lagu sameeynayo waxaana uu sheegay in xilligan ay taagan tahay saameynta cudurka COVID-19 loona baahan yahay in la ilaaliyo shuruucyaha kala duwan ee ay soo saarayaan laamaha caafimaad oo ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cabduqaadir wasiirka warfaafinta waa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedkaasi Galmudug ayaa warbaahinta la wadaagay warkan ka soo baxay wasaaradda annagoo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Galmudug waxaan fariin u direynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool maamul goboleedka Galmudug khaasatan culimada diinka Galmudug inay u istaagaan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurka coronavirus-ka kaas iyagoo wacyigelintaas ka sameynaya goobaha la isugu yimaado sida masaajidda iyo goobaha waxbarashada
qodobka labaad waxaa nagu soo wajahan bishii barakeysneed ee Ramadaan sidaas awgeed wasaaraddu waxay ka codsanaysaa culamaa diinka Soomaaliyeed in ay si dhow ula socdaan bilashada bisha Shacbaan si aan uga baxno khilaafka bilashada bisha Ramadaan wixii xog ah nala soo wadaaga insha Allah. qodobka saddexaad waxaan ummadda Soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah ku wargelinaynaa in ay u soo duceeyaan arinta maxkamadda badda ee Kenya muranka gelisay in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nagu guuleeyo. qodobka afraad waa ogeysiin ku aadan hay'adaha khayriga ah iyo maamulada ka jira galmudug sida maamul gobol maamul degmo iyo maamul tuulaba in aan la furi karnin lana dayactiri karnin masjid aysan ka warqabinin wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta galmudug. hay-aduhuna waxaa laga codsanayaa in ay aqoonsi ka qaataan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. wixii raba in ay arintaas xog dheeraada ka helaan xafiiska wasaaradda ee Dhuusamareeb la soo xiriiraan. gudaana intaas ayaan jeclahay inaan ku hakiyo saaxiibayaal warkii habeen ee raadiyaha TV-ga City anigoo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay dhanka kaamirada waa saaxiibkay Yuusuf Abubakar Ibraahim intaanu ku kulmi doono warkankiisa xigana waxaan idin kaga tageynaa isma dhaafno.